السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحان ربا إنان كالسلامة ومد الصومالية ملكستي جوغان وحان ليا عيد مبارك. أنا قوها سكري على حاج سعيد قارهان هل كان وحان ربا إنان كالسلامة وباق وقدره اسمه ذا بودلان وحقرتك بودلان وحان ليا عيد مبارك لما شعبك بودلان والسلامية. dhowr arrimood baan rabaa inaan soo koobo oo soo yareeyo qof kasta oo Soomaaliya oo videogan daawadan waxaan ka codsanayaa inuu videogan share gareeyo shacabka reer Puntland waxaan ka codsanayaa videogan inay share gareeyaan si uu u gaaro isimada iyo dadka waxgaradka ee Puntland walaalayaal sida la socotaan Puntland hadda waa la isku hayaa xoogag badan baa isku haya marxalado badan bay Puntland soo martay haba kala duwanaadeen isimada Puntland iyo dadka waxgaradkaana hawshoodii way gabeen maantana waxaan jeclahay baaqan inay ku cimri qaataan waayo bulshada Puntland isku fikir baan nahay isku aqli baan nahay waxa social media ka socdo dadkeena wax garadka ama siyaasiyiinta badana ma dhageystaan mana fiiriyaan dadka qoraalada ma fiiriyaan because ma aaminsan social media wadamo badan oo hormaray ayaa lagu rogayo lagu gadiyay marka midaan ka hadlayo waxa waaye isimada Puntland iyo dadka wax garadka walaal waxaan baaqan idin diray wuxuu yahay inay hurdada ka kacdaan oo dhibaatada iyo meesha ay wax ka qurmeen aad xalisaan oo Puntland aad saxdaan wixii qaldan aad saxdaan nimankan hadda meesha haysta oo xukunka haysta shalay ma ay dorhad beed markii dhoobo daarood la weeraray raali bay ka ahaayeen heshiis bay ku ahaayeen hal nin oo isimo ka hadla ma jiro maanta iyaga baa isaya waa la isku hubguranaya baroorta socota meel kasta ciidan baa isaga yimid waa ina fadhiga ka kacdaan waxa xalin kartaan oo qaban kartaan waa ina qabataan shacabka Puntland waxaan leeyahay walaalayaal Puntland 3 bilood baan soo joogay marxaladda maanta ay ku jirto cidna ma weydiinayo dhaqaale xun baa ka jirta wadanka maamuladii ku horeeyay ama habooban ama kan haboobo wixii la dhici kara hal dhaco wadanka dhaqaale male qarno duufaanihii yaraa oo ka dhacay maanta shalay ma hadurad ama weeyga la soo dhaafay waa ogeedeen dadku sida u qeylinay iyo gaajada iyo rafaadka meesha ka jira Puntland maanta diyaar uma aha shacabkeedu inuu isku dhaco ama uu isnaco isimada iyo dadka wax garadka ah waa inay fadhiga ka kacdaan waa inaad waxa aad qaban kartaan aad qabataan labadoodana ay isdhaafisaan anigu waxaan aaminsanahay Axmed Karaash iyo Saciid Cabdullaahi Dan labadooda qoraygiis waa la isla tuuraa labaduba shalay nimankii baarlamaanka weerar labadooda waa weerareen Saciid Cabdullaahi Dan kaliya baarlamaanka ma soo weerarin Axmed Karaash iyo Saciid Cabdullaahi Dan heshiis waxay ku hayeen dhoobo daaro in dhulka la gooyo oo la weeraro way ka sinaayeen taas labadii shalay xaq darrada ku heshiisaa maanta xalaasho ku heshiin la marka isimada Puntland iyo dadka wax garadka walaal fadhiga ka kaca isimada Puntland daliilo badan baan anagu idin haynaa hadaan shacabka Puntland dadka wax garadka Puntland daliilo badan baa idin haynaa hadaan shacabka Puntland shalay markii dhoobo daaro la weeraray ama dhibaatooyin kale oo ka horeeyay Puntland kama dhacay kama aydan hadlin walaalayaal nabadna kama aydan keenin labadaan nin maanta waxay u socdaan gorow inay baabi'iyaan dadku inuu islaayo iscuno dadka walaalaha oo dhashay reer Puntland inay iscunaan meel kasta ay joogaan gudo iyo dibadba arrintan iyada waa inaan ka hortagtaan tan kale aan rabaa inaan ka hadlo waxay tahay baarlamaanka Puntland walaalayaal sida la socotaan baarlamaanka Puntland wuxuu dhintay ayaantii dhoobo daarood wiilashii la socdana la laayay isagana magaalada laga saaray ayaantaas uu dhintay oo qof kale oo maqaar saar intii meesha la keenay la yiri gudoomiyaha tahay marka runtii xaqiiqada idin sheego kan ahaadana waa in adeerkay kii laga tuuro dhooban in adeerkay buu ahaa marka hal isin oo ka hadli ma jiro baarlamaanku ku guul dareystay arrinta iyada dhaqaale uu qaatay Axmed Karaash wuxuu la saftay Saciid Cabdullaahi Dan marka si aysan taas oo kale noogu dhicin iyo dhibaatooyin kale aysan noogu dhicin waa in labadoodaba la isla tuuro anigu saan qabo ama maslaxad laga keeno meeshaas anigu Aaron Jaanna taageero ma ahiyo ma jecli Saciid Cabdullaahi Dan taageero ma ahi Axmed Karaashna taageero ma ahi laakiin shacabka Puntland marxaladdu maanta ku sugan yahay marka runtii xaqiiqada idin sheego anigu waa ogahay dhibaatooyin badan baa ka jira Puntland gaaja ka jirta lacag la'aan baa ka jirta shacabka Puntland waxaan ugu baaqayaa nabad in laga wada shaqeeyo waliba gaar ahaan social media dadka reer Puntland ee wax garadka iyo siyaasiyiinta way yareysanayaan social media wadamo badan oo hormaray baa lagu baabiyay oo shacabka la isnacsiiyay oo ilaa hadda la isgumaadaya shacabka Puntland ee social media ku jira walaalayaal waa in nabad laga shaqeeyo shacabka Puntland jooga oo gudaha jooga anaa tagay oo ka imid shacabka Puntland waxba ma haystaan waa dad masaakiina dhaqaale waa haysan jiraan laakiin diirata u timid wadanka waa la diirtay maamulo kala duwan baa soo maray dhaqaalihii waa la diirtay dekadihii waa la gatay wax kasta waa la gatay dhib male wixii la xalin kara gadaal baa laga xalinayaa laakiin dadka masaakiinta ay shacabka Puntland gudaha jooga loo turo dagaal iyo fidno yaan laga shaqeyn dhamaantiin waa idin salaamayaa fadlan qof kasta oo videogan daawada waxaan ka codsanayaa inuu share gareeyo shacabka Puntland meel kasta joogtiin walaalayaal nabadda ka shaqeeya nimanka siyaasiyiinta ah iyaga iska kiin jecel yeesan orko idinku kacsanin yaan la isku kiin dirin qabiil maanta la isku kicin
aaranjan cida u naxaysa ma jirto Saciid Cabdullaahi Deni cida u naxay ma jiro Axmed Karaash cida u naxayna ma jiro kulligan dad wada dhashabaana qabiiladan masaakiinta ah oo maalin kasta ee social media la karbaashayna xogaha la yareeyo dad badan baan ku haysan xukuumadan Puntland kuwa hore iyo kuwa dambe qabiilo badan oo dadkaas hadda lagu magacaabo waxba ku haysan baa jira oo mudug iyo nugaal iyo karkaar ku nool xaqiiqda iyo runta anigu kala hadlayaan soo ogaaday xaqiiqda iyo runta niman siyaasiyiin ah oo danahooda gaarka fiirsanaya Puntland soo maray oona qabiilna u turay xaqiiqda runta markaa idin sheego dadkaaseeto waa dad wada dhashay reer Puntland waa dad is jecel dhibaato meesha ka jirta dhaqaale xumaa ka jirta waxba ma yaalin nabad aan ka wada shaqeyn siyaasiyiinta hal la karbaasho dhib male laakiin nabad ha laga wada shaqeeyo colaad yaan la hurinin dadka reer Puntland colaad uma baahna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا فيديو قال شير قرايه دمانتي بيتصل عليكم السلام عليكم